تسرع بالإجابة طالعنا من بعد الصحابة يوم العدوان تسرع بالإجابة والجنة حق والموت شهادة والجنة حق والموت شهادة خلي اللوام يلوم مهما لاموا خلي اللوام يلوم مهما لاموا عودوا يا ناس للإسلام وأيامه خلي اللوام يلوم مهما لاموا الإسلام وأيامه خلي اللوام يلوم مهما لاموا عودوا يا ناس خلافك يرادك حنا وكليه ومضى محاضرة وحين وقل الدون نص وجدين دونا الشيخ محمد عبد أمل فليتفضل مشكورا. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر الإخوة والأخوات، موضوع درسك أو محاضرته سيد الله الشيخ وحوي الاختلاف وآثاره سيئة على الأمة. اسخلافك هي رادت كيسا حنحن وكل يهي أمة قركان ولما قيبوت اسخلافك هي دباتويك كنش. موضوعه وموضوع رسلية هاي سي أهانتي سقو الدين تأهمية أقوله أيها هدنا مجتمع عدو كوهل اللقاء عن كوهل اليوم حالة maanta uu ku sugan yahay iyo marxalada uu marayo muhiimad gooniya uu leeyahay mowduucani. maxaa yeelay cudurrada ugu waaweyn ee maanta haysta mujtamacan waxaa ka mid ah iskhilaafka iyo ismaandhaafka iyo kala tagga iyo qaybsanaanta taas iyo marka dhibaatooyinka ay leedahay ama mujtamaca aakhiradiisa iyo adduunyadiisaba dhibaatooyinka u geysan karto. waxaan is leeyahay mowduucaasi mudnaan gooniya buu inoo leeyahay haddaan nahay mujtamaca Soomaaliga ee maanta jooga. intaan guda gelin waxaan jeclahay inaan kala qaado laba arrimood ama laba maado macnahooda inaan kala saaro. maadada koowaad waxa weeye waa ikhtilaafka midna waa iftiraaqa. ikhtilaafku waa ka guda weyn yahay iftiraaqa
واختلافكم كلا قدسنان أو دن با اختلاف لديه كلام قيب waxaa ku jirta ayna shariicadu waxba ka qabin nolosha bini aadamkana aan dib u geysanaynin iyo qayb dib leh oo shariicadu diiday nolosha bini aadamkana dhibaysa aakhiradiisa iyo adduunkiisaba waa ikhtilaafka marka laga hadlayo ama iftiraaqa oo isagu kala tagidda iyo qaybsamidda ah dhammaantii isagu waa xuyin isaga waxba laga soo reebin waa xuyin saas daraadeed ayay culimada qaarkood waxay leeyihiin calaaqada ka dhaxaysa labada kelimo oo ikhtilaafka iyo iftiraaqa waa calaaqa cumuumiya oo ikhtilaafka ka guda weyn iftiraaqa ikhtilaafka labadiisa nooc mid ka mid ah ayuu iftiraaqu noqonaya baynama ikhtilaafku uu leeyahay qayba ayna shariicadu ayna waxba ka qabin sidaan arki doono taa markaan intaan kaga gudbo waxay u qaybiyaan culimadu iskhilaafka saddex qaybood ama khilaafka waxaa loo qaybiyaa saddex qaybood qaybi waxa weeye waa qayb ay keenayso dabeecada bini aadamka abuurka ilaahay tabaaraka wa tacaala siduu u abuuray iyo jibilladiisa keenaysa waxaa kaloo keenaysa dabiicada nusuusta qur'aanka iyo sunnada oo siday culimmadu leeyihiin siday u badan tahay nusuusta qur'aanka iyo sunnadu waxay leeyihiin waa daahiratu dilaala tusmadeeda ay xukunka ku tusaysaa nas ma aha ee waa daahir daahirka waxaa la yidhaahdaa shay ixtimaali kara laba macno ama ka badan laakiin labadii macno mid ka mida ku xoog badan hadal laba macno ka badan ku tusi kara laakiin macaaniduu ku tusayo ayna u sinnayn ee midkood ku xoog badan yahay nusuustu marka ixtimaalka ku xoog badan sidanna waa suroobi kartaa in laga wado sidan in laga wadana waa suroobi kartaa nusuusta macnahana ku badan marka dabeecadda nusuusta marka la fiiriyo bini aadamka dabeecaddiisana la fiiriyo laanna ilaahay tabaaraka wa tacaala fahamka iyo garashada kuma simin aqoonta kuma simin waxaa laga yaabaa hadal la yidhi oo dad aad u fara badan ay dhegaysanayeen inuu ruuxba si u fahmo mid inuu macno ka qaato macnihii uu kaasi ka fahmay inuu ku kala gaari waayo fahmi waayaa dhici karta marka dadkiiba fahamkii loo kala duway aqoontii alla u kala duway nusuustii oo macaanidii ay ixtimaali kartay fara badan tahay oo dilaaladeedu ay daahir tahay badankeed waxay keeni karaysaa fahamka nusuusta iyo fahamka qur'aanka iyo fahamka sunnada in dadku ay ku kala aragti gedisnaadaan tan noocaasoo kaleeta ah marka waa midda hore waa midda la yidhaahdo muxuu ahaayey khilaafka noocaasoo kale ah bixaddi daatihi mushkilo badan ma leh bal huwa alwaaqic xaqiiq ahaan markaad fiiriso waa khilaafka fiqhiga ah oo ku saabsan masaa-isha fiqhiga ah oo ku saabsan masaa-isha ay culimada qaarkood u yaqaanaan masaa-isha furuucda oo ijtihaadaadka iyo aragtida culimadu ku kala gedisan yihiin